maanta waxaan idinla wadaagi doonaa xaqiiqda ka dambeysa gabarey maayada noola jira miyaa mise waa sheeko xariiro. Ma jirtaa cid aragtay oo soo bandhigtay noolaha kan? haddii ay jirto, xagee ay kaga nooshahay badda? dhanka kale, haddii aysan jirin, yaa soo alifay? ma sheeko xariiro caalamkao dhan ku dhex faaftayba, mise Soomaali oo keliya ayaa qaas u tahay sheekadeedu? xalaal miyaa mise xaaraan gabarey maayada, maadaama noolo kasta oo badda ku nool uu xalaal yahay? marka hore sharxaad yar aan ka bixino qaabka la yiri way u egtahay gabarey maayadu ama sawirada maalawaalka ah lagu arko. wuxuu la mid yahay qof dumar ah, waxayna leedahay madax, gacmo iyo laab sida bini'aadamka oo kale ah. jirka intiisa hoose, yacni qaarkeeda hoose, halkii lagu ay ka yeelan lahayd waxa ay ka leedahay qaarka dambe ee kalluunka, yacni dabada kalluunka. waxaana lagu sheegaa in ay ku nooshahay badda dhexdeeda, gaar ahaan gunta hoose ee badda, meelaha qotada dheer. haddaba sheekada gabarey maayada ayaa ah sheeko ka jirta guud ahaanba caalamka oo dhan, kuwa Yurubta, Afrika, Carabta ilaa iyo Asia. haddaba gabarey maayadu noola jira miyaa? waa maxayse sababta maayadu aysan run u ahayn? saddexdan qodob ayaana sheegaysa in maayadu aysan ahayn noola jira. qodobka koowaad waa cadayma la'aan. ma jiraan wax caddayn cilmi ah oo sheegaysa ama taageeraysa jiritaanka gabarey maayada. biolojiyada badda. haddaba cilmi-baarayaasha badda iyo cilmi-baarayaasha badaha ee baranayay waxaana ka ogaanaya cilmiga badda weligood ma ay helin gabarey maayo, mana aysan arkin. qodobka saddexaad ugu dambeeyana waa suurtagalnimada jireed iyo qaab dhismeedka u egyahay jirkeedu oo aan macquul ahayn. gabarey maayada waxaa la sheegaa sida sawirada maalawaalka ah lagu arkay jir ahaan waa wax aan macquulba ahayn. makhluuquna jir ahaan iskuma darsan karo habdhiska dheefshiidka bini'aadamka iyo habdhiska dheefshiidka kalluunka. asalka khuraafaadkan maayada ayaa ahaa khuraafaad qadiimi ah oo jiray muddo dheer, asal ahaanna ka soo jeeda khuraafaadyadii hore ee Giriigga. aragtiyada qaar ayaana sheegaysaa in rag badmaaxyaal Giriig ah xilliga baldhaca ay badda gunteeda meel aad ugu fog ay ku arkeen noolo u eg bini'aadamka. noolahaasoo markii dambe noqday kalluunka loo yaqaano manatees. raggaana aqoon uma aysan lahayn kalluunkan manatees la yiraahdo ayaa wax yar soo shabaha bini'aadamka. haddaba badmaaxyaashii marka ay ku noqdeen berigii ayay dadku u sheegay in ay soo arkeen noole inta hore gabar ka ah, inta hoosena kalluun. halkaana sheeko xariirada ah wax ku faaftay gabarey maayadu in ay jirto oo ay tahay noole xaqiiqo ah. haddaba daawada, adigu ma ka mid tahay dadka aaminsan in ay jirto gabarey maayadu, mise waxaad tahay dadka aan aaminsanayn in ay jirto?